watahay daawadayaal hadda waxaan ku suganahay xaafadda Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa hadda guriga aan taaganahay geeri baa ka jirta Allah u naxariiste inaan kamid ah ardaydii maanta imtixaanaadkooda lagu dhawaaqay ayaa dhimatay kadib markii imtixaanka la yeedhiyay ayay inantan isdaldashay say noo sheegeen dadka xaafaddu hadda waxay ag taagan mid kamid ah dadka jaarka la gurigan oo warbixin kooban inaga siin doona qoyskan walaal soo dhawow wala socona xaaladda ka qabsatay gurigan amba ka dhacday waxa kala socdaan xaaladda nololeed xaafadan qaaluu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta geeri xanuun badan baa xaafadda ka dhacday umana qaadan karno jaar ahaan haddaan nahay waayo gabadha yar gabar aad mutaadabada akhlaaq badan diiniyan islaamiyan intaba ku wacaan ayay ahayd aad u dadaal badan maadaama imtixaankii la yeeriyay way u qaadan weyday annagana waxaan u qaadan weynay way dhimatay ama way isdishay waayo gabadha dadaalka ku jiray mutaadabnimadeeda xaafadda inta deganayeen wali gabadhaas oo banaan taagan lama sheegin hooyadeedna waxa waa hooyo caruur yar u shaqaysato oo aroorta ilaa 4 habeenimo baxdaa habeenkiina waxay soo gashaa 4 habeenimo ama 10 habeenimo ay soo gashaa ayada caruurta u haysay gabar yar waxay ahayd mutaadabada akhlaaq badan wali lama arag gabadhaas oo taagan gabar aad u dadaal badanna weyd waxay u qaadan weyday siday u dadaalaysay imtixaankii siday ugu dhacday inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun baan leenahay geeridu waa xaq wayahay walaal wax lagu maqaala in xaafadan marka xaaladda nololeed ee guud ay ku sugan marka laga hadlayo xaafadan inay dhawaan soo degeen goobtan halka ay ka soo guureen uu guri kaga gubtay arinta ma maqashay idinku sama ka war haysan anigu xaafadaas baan jaar lahaa guriga uu ka gubtay dadkii waxaan ahaa goobjoog ka ahaa guriga markuu gubanayay fariistewan oo waxaan uga imid xaafadda jungalka la yiraahdo geerida oo maadaama reerku aan jaar ahayn guriga ka gubtay taariikhda aan ka waramayana waxay tahay dhaqan ahaan markii deganayeen xaafadda aniga aan hadda deganahay reerkuna waa reer danyar ah waan ognahay nimco badan hooyadu xamaali tagto caruur yar yar oo badan oo yacisa haysato inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan sameeyna garamayno waa xaq geeridu waka ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree oo ku sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed سلام عليكم السلام عليكم waxaanu jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican idinkaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan isku halayn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland